السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي القضاء بدأت وركنكم مغلي دونتنا وحاكم إذا dagaaladii xoogana ee ka socday galbeedka gobolka City oo gaaray abid meeshii ugu xumaa sidoo kale waxa la soo sheegay in saraakiisha ciidanka liyu booliska oo ku sugan magaalada Addis Ababa lagu wargeliyay inay sida ugu dhaqsaha badan ciidanka liyu booliska uga saaraan galbeedka gobolka City sidoo kale dagaaladii xoogana ee ka socday waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxa la soo sheegay in dagaaladii ugu xumaa ka socdaan magaalada Addis sidoo kale duulimaadka diyaaradaha ayaa waxa laga joojiyay garoonka ku yaala caasimadda gobolka Canfarta ee Sameera qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan adaynu gudagal wararkeena oo faahfaahsan dagaaladii xoogana ee ka socday gobolka Canfarta ayaa waxa la soo sheegay in abid meeshii ugu xumaa gaareen dagaaladan u dhaxeeya ciidamada Canfarta iyo ciidanka liyu booliska dowladda Soomaalida ayaa waxa la soo sheegay abid meeshii ugu qaraareed inuu gaaray iyadoo la soo sheegay inuu maamulka Canfarta qaxweyn ka jiro laga cararayo ciidanka liyu booliska dowladda Soomaalida isku balaariyeen dhulka tirsan gobolka Canfarta markii ay xoreeyeen dhulkii dowladda Soomaalida dagaaladan oo qaatay usbuuciyo bar ayaa waxa la soo sheegay ugu yaraan 10,000 oo qoys inay ku barakaceen sida ay ku dhinteen dad boqolaal dhan dagaaladan oo la garanaynin abid markii ay soo afxirmi doonaan ayaa waxa la sheegay in abid meeshii ugu xumayd gaareen hubka noocyadiisa badan la isweeyaarsanayo ciidanka dowladda Soomaalida ayaa waxa la sheegay inay maalin iyo saacado ku qaadatay inay qabtaan magaalada Garbaciise dagaaladan oo la sheegay inay markii ugu horeysay soo qaadeen Canfarta mararka horeysay badan ay dad badan ku xasuuqeen magaalada Garbaciise ayaa waxa la soo sheegay xaalku meeshii ugu xumayd inuu marayo dhulka lagu dagaalamay ayaa waxa la sheegay inay ka barakaceen kumanaan qoys ayadoo la sheegin wali in wax shacab ah dhulkaasi ku hareen dhulka ayaa dhaxmaraya dagaalada ayaa waxay dhaxmarayaan kooxaha hubeysan ee hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsanaya dagaaladan oo labada dowladda is hubeynayaan oo dhan kasta taageeradooda iyo shacabkooda raadsanayaan ayaa la sheegay dowladda federaalka inay in badan dusha ka fiirsanaysay hase yeeshee sidoo kale waxa la soo sheegay saraakiisha ugu sarreeyay ciidanka liyu booliska dowladda Soomaalida in laga wacay magaalada Addis Ababa laguna wargeliyay inay sida ugu dhaqsaha badan ay ka saaraan ciidanka liyu booliska ee jiida hore dagaal ka jira galbeedka gobolka City dowladda Soomaalida ee Itoobiya ayaan wali ka hadalin hadalka la sheegay inuu ka soo yeeray dowladda federaalka Itoobiya sida ugu dhaqsaha badan ay ka saaraan gobolka City ciidamada dagaalka halkaasi ka wada dhulkan oo ah dhul lagu eedeeyo inay dowladii hore ee dowladda Soomaaliya ka tirin jirtay waqtigii dowladda Cabdi Maxamuud Cumar inay ku wareejisay gobolka Canfarta ayaa waxa la soo sheegay inay markasta halkaasi dagaaladu ka soo xusboonayaan ilaa isbedelkii kadib dagaaladan oo u dhaxeeya ciidamada labada dowladda ayaa la sheegay sidoo kale maamulka Canfarta inay taageero ballaaran ka helayaan xagga federaalka ayaa ahayd maalmihii la soo dhaafay ayaa la sheegay TV-ga Fana inuu sheegay ciidanka dowladda Soomaalida qoraalka lagu sheegay inuu taliyaha militariga dalka Itoobiya yahay inay ciidanka dowladda Soomaalida sida ugu dhaqsaha badan haday uga bixi waayaan gobolka Canfarta inay dagaal la gali doonaan hase yeeshee sidoo kale waxa la soo sheegay inay dowladda federaalku sheegtay in ciidanka deegaanka Soomaalida dib ugu noqdaan dhulka dagaalku ka socdo si xal waara loo gaaro maamulka Canfarta ayaa markasta weerarka soo qaada haddana markasta barorta u gudbiya dowladda federaalka maamulka Canfarta iyo dowladda federaalka markasta barortooda gudbiyaan ay u janjeedhaan dhankooda sida ay dadka Soomaalida shacabka ay ka cabarayaan deegaanka Soomaalida ayaa moodaa sanadkan inuu si adag u abaabulan yahay dagaalkana ay ka go'an tahay inay marna ka soo laaban ilaa ay soo celiyaan dhulkii dagaalku socday maxaa yeelay markasta oo dhulka la gaaray ciidanka Soomaalida waayii hore way ka soo bixi jireen haddana kadib Canfarta weerarku may sidii u soo qaadaa haday maanta ciidanka dowladda mar labaad ka soo baxaan Canfartu ma joojinayso arinteeda sidoo kale waxa la soo sheegay guddiga doorashooyinka heer federaal in la shaaciyeen dowladda Soomaalida goobaha dib loogu noqon doono ee kurooyinkii hore loo qaatay dib loogu noqon doono guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxay sheegeen dhowr magaalo ay ka mid tahay magaalada Jigjiga iyo Qabsadaare inay dib loogu noqon doono sidoo kale xisbiyada ka diiwaansan dowladda Soomaalida sida xisbiyada mucaaradka ayaa waxa la sheegay xisbiga FEB oo ka mid ah xisbiyada ugu awoodda badan dowladda Soomaalida inuu qaadacay gabi ahaan doorashooyinka la filayo inay dowladda Soomaalida ka dhacaan bishan soo socota
qaadacada xisbigan ayaan la ogeyn meesha ay ku dambeyn doonto iyo inay ku biiri doonaan xisbiyada mucaaradka ee kale. hase yeeshee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa la sheegayaa maamulka talada haya in lagu eedeynayaa inay qalloocsadeen doorashooyinkii ama waqtigii kurooyinka ay kurooyin badan ay u janjeedheen dhankooda. xisbiyada mucaaradka ayaa ku eedeynaya xisbiga talada haya ee dowladdeegaanka Soomaalida inuu doorashooyinka afduubtay ayna iska caddahay kooxda ku guuleysanaysa. sidoo kale dagaaladii xooggan ee ka socday waqooyiga dalka Itoobiya ama galbeedka dalka Itoobiya bartamaha gobolka Axmaarada ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu cirkaas ku shareeray. ciidamada TPLF ayaa waxaa la sheegay inay dagaalo xooggan ku qaadeen dhul ay ku sugnaayeen huwanta dowladda federaalka hogaaminayso iyo maleeshiyaad badan oo kale oo laga soo ururiyay meelo kale. ciidanka TPLF ayaa waxay sheegeen gabi ahaanba inay cagta mariyeen meelihii ay saaka weerarka ku qaadeen. shalay waxaa la sheegayay inay galbeedka magaalada Gondar ay dagaalo xooggan ka socdaan. sidoo kale caasimada gobolka Wollo ee Distina ayaa waxaa la soo sheegayaa in laga maqlayo hubka noocyadiisa kala duwan maadaama deegaanada u dhow maalmahan lagu dagaalamayay. TPLF ayaa waxay sheegtay sida ugu dhaqsaha badan in gobolkan gabi ahaanba gacanteeda soo gelin doonto wax kasta oo joogan ay cagta marinayso. dagaalka TPLF iyo dowladda federaalka u dhaxeeya ayaa qaatay ugu yaraan 10 bilood iyadoo lagu ogeyn waqtiga uu soo afjarmi doono. sidoo kale labada kooxood ayaa qoladeeda kala u suweynaysa dowladda federaalkana markasta taageeradeeda iyo xagga ciidanka aad bay ugu dadaalaysaa. TPLF oo baryahanba waqooyiga dalka Itoobiya iyo galbeedka iyo bartamaha dalkaba dagaalo xooggan ka waday ayaa waxaa la soo sheegayaa inay xalay habeenimada xalay gantaalo ku garaacday caasimada gobolka Canfarta ee Sameera. duqeymaha ayaa waxay sababeen in diyaaradihii duulimaadka laga joojiyo garoonka maxaa yeelay diyaaradaha duulimaadka ayaa aad looga baqay inay ku soo dhacaan gantaalada ay TPLF tuurayaan. TPLF ayaa waxaa la sheegay labadii maalmood ugu dambeysay inay dagaalo xooggan gobolka Canfarta ka wadeen ayagoo ugu yaraan deegaano ballaaran qabsaday. cabsida laga qabo TPLF inay gebi ahaanba gacanta ku dhigto gobolka Canfarta ayaa dalka Itoobiya aad looga dareemayaa. kooxda TPLF isku wada inay qabsato wadada weyn ee halbowlaha ee dalka Itoobiya iyo Djibouti isku xirta ayay muhiimad weyn u tahay dowladda federaalka Itoobiya. dowladda federaalkana way isku dayaysaa inay difaacdo wadadaasi. haddii wadadaasi gacanta ka baxda dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxaa ku noqon doonta dhabar jab weyn oo soo gaara dowladda federaalka. inay dowladdu sii shaqeyso oo maamulkeedu sii jirana way adkaanaysaa maxaa yeelay wadadaasi waxaa ka yimaada dhaqaale ballaaran iyo ganacsi aad u weyn. haddii wadadaas TPLF gacanta u gasho TPLF gabi ahaanba waxay dhici kartaa inay ganacsiga ku leexiso waqooyiga dalka Itoobiya oo laga soo sheegayo macluul iyo gaajo aad u badan. dowladda federaalka ayaa horey TPLF ugu eedeysay waqooyiga Itoobiya wixii ka dhacay macluusha iyo gaajooyinka ka jira inay mas'uul ka tahay kooxda TPLF. kooxda TPLF oo dalka Itoobiya lagu aqoonsan yahay inay tahay koox argagixisa liiska argagixisan oo ku daray baarlamaanka dalka Itoobiya ayaan la garanaynin meesha ay ku dambeyn doonto maadaama ay dagaalo xooggan kala horjeedo dowladda federaalka Itoobiya uu hogaamiyo Dr. Abiy Ahmed. daawadayaal waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe wacan. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.